marka dadkaan u sheego inaan u shaqeeyo lanqeyrta cas intooda badan waxay ii soo eegaan si xoogaa mahsanaan ah. waad garanaysaan baan dhahaa, lanqeyrta cas, bisha cas. saas miyaa bay ii dhahaan. dhakhtar maa tahay? maya baan ku dhahaa, dhakhtar ma ahi. dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaadba waan leenahay, inkastoo taa ay tahay qayb ka mid ah waxyaabaha aan qabanno. marka maxaad qabataan ayay i weydiiyaan. hagaag, ma maqasheen axdiyada Jeneefa? dabcan, ayuu yidhi mid ka mid ah. ha ahaatee, dhab ahaantii maxaa loola jeedaa? hal daqiiqo ayaan ka fakeray, kadib waxaan idhi waxaa loola jeedaa mar kasta oo ay colaad hubaysani jirto, meesha ay ka socoto ayaan tegi karnaa si aan u caawinno. waxaa loola jeedaa dadka ka cararaya guryahooda sababo la xiriira dagaallada inay heli karaan biyo nadiif ah oo la cabo iyo cunto. waxaa loola jeedaa in carruurta uga luma qoysaskooda goobaha colaadda ay mar kale dib ula midoobi karaan qoysaskooda. waxaa loola jeedaa marka aan booqanayno maxaabiista, waxaan isku daynaa inaan hubinno in loo hayo si waafaqsan heerarka caalamiga ah, si sharaf leh, iyaga oo aanan ka baqaynin in si xun loola dhaqmo. wuxuu weydiiyey, hawshaas oo dhan sidee baad u qabataan? hagaag, saaxiibadayda shaqada oo kor u dhaafaya 13,000 kana howlgala in ka badan 80 dal dunida daafaheeda ah, laakiin keligeen ma nihin. waxaan wada shaqaynaa jamciyad qarameedyada lanqeyrta cas iyo bisha cas. howlaheennu waxay ina gaarsiin karaan gudaha xarumaha magaalooyinka ama meelaha baadiyaha fog. ee xasho la'aanteenna, madax bannaanideenna iyo dhexdhexaadnimadeenna ayaa noo saamaxaysa inaan ka hadalno mawduucyo xasaasi ah. shaqadan inteeda badan waxaan qabannaa wakhtiyada nabadda, laakiin colaadda hubaysan ayaa abuuraysa baahiyo badan oo kala duwan. qaarkoodna ma aha kuwo isla markii la arki karo. taageero dhanka nafsadda iyo bulshada, ka ilaalinta xadgudubka jinsiga, ama waxbarasho ku saabsan khatarta miinooyinka. waxaan wada shaqaynaa dadka aan u gargaarayno, innagoo ku caawinno inay hagaajiyaan habnololeedkooda. sidaa darteed, wax kasta oo ay soo mareenba waxay leeyihiin mustaqbal rajo fiican leh. taana waa bini'aadamnimadii oo shaqaynaysa.